ما ليزان سوينا كله يا السلام عليكم ورحمة هذا ما ليزان راي وحي هساها يبرامو يقولوا يقوي يعيار مرة لودمي وكل ما سنتي بقول يا أخي طبعاً اسمه ما شاع وسير معنا جارهان إن أنا بالله نقدر حسب ومحيطها إن قفك أنا نجابله ذاك أنا نجات السن ووحقبته مدبر أو وحقبته صارت يلعب يصد عن هاي إلا سوي ماذا سوى الجيرة لو يراه لو ما سنتي بقول يا أخي طبعاً هو شيء الله قبته وحنا الفريق ناينا هو خبر انت قبتين وما سنتي مركب رئيسه معنا سعيد معنا محمد ومعنا ابراهيم انت وما تسين هالمر يحاول وصل وان قاعد سين الله سبحانه نبدا حتى هيسبي ان هيسها وجعل ميكروغرافيا هي قاضي وهاي ان معلق الله هيسو وحنا هاي دقمada kale oo dunida ka duwan marka macallimiinta laga dhamaysto dunida kale waa ka cararta anaga waa u heesna marka maadaama aan leenahay dhaqan macallimiinta in hees loo qaado aad baad u mahadsan tahay inaad walaalkay wacaaw halkan uga tiriyo waad u mahadsan aniga ugu dambeyntii waxaan rabaa caaw saddex arrimood inaan iraado oo midda ugu horeyso ah inaan idiin sheego aniga iyo macallin Saciid sidaan isku baranay معنا سعيد وحاول روتي كمل يهاي ركب فرقتيرسيا أنت دجالة الرعاين مدة دجالة وجرة إن لغة الصومالية الله يوم لقرب لحديو هل كدي بولية كلي وحايت هاي مركو لغة كوها ده جرى يا فهمي أنت عصب يا أنت خروجك توقع دعاية لكن ساس أي تاي لغة ومركا وخيط وخطاتي أي واحد هاي على سوق بكرة برنامج واحد جري على يرادو أذكر بيش الصوماليات ومدة مركي عن بنك الجوي أنا إذا عدى كيف هاي عن قصة دينج من المعلومة بوتلادات معنا سعيد برنامج واحد وفر بدل أي سمي وحلقية واسق حتى أي هذا وجي نقدر هذا أي مريان أنت برنامج وكسمي معنا سعيد وبقول يكونتني له برنامج وإذا عدى كبعض أي سمي وكمانتو يقول نصنا أي مكودة شقيني من سوق بغالي أفريد ومكي ماتسم ضدي ونلشت أي وحكمي هذا حركة حتى أبو عانسن لنا تقامنا محمد شين اللي يراه وإذا عدى BBC دو شقيني so it just to give you some perspective إبراهيم عاي مركي عن ليدورتي نوفمبر last year وكمل لها ركي هو الرئيسي oo ii sheegay meelaha ay wax ku duugan yihiin iyo sida loo soo saari karo Ibrahim aad ugu mahadsantahay boqol iyo 14 macallin Soomaaliyeed sida oo kale free waa banka waa the Somali standard insha Allah socotaan Iran standard waa Somali bank and African bank waxa marka oo aan habeenayd aan loo sameeyay xafladiisii oo ahay in marka uu ka baxay dugsiyada oo howlgab ka noqday waxay ahayd inaan ku yiri ماشي كجوجسين بانكينج أي قبل لا ما يكتبنا وحول وحيش وصل لعبريسا باش الصوماليين أما community اللي شغال الله. now الرمية نسوي برجع عاون هذه شغل مركو وجوه الرئيسة district كان جوتان يعني كتمرين على سوق schools أما أروح أقول تاني put the hands up. Very good. Thank you very much for being part of the school district. We appreciate that. waxaan rabaa Soomaaliya inuu ku sheegayo waxaan ii sheegay inta badan inta aysan Ingiriiska ka qasan mid ugu horeysa waxa weeyaan Soomaalida ku mahmada lafta dhanka ninka u dhow ayaa kala baxay macnaheedu waxa ay tahay public policy marka la dejinayo dadka codkooda la maqlo oo yimaada oo la socda oo waxa meesha ka dhacay ogaada ultimately dadkaas ayaa hooshooda iyo shaqadooda la qabtaa gobolkan waa degannahay aniga hadda waxaan ka imaaday Sweden oo 16 months I enjoy in case you want to read a little bit about what I was writing about or thinking about there's a blog on the African Development Center you can read all of it hadduu ilaahay kala keeno but let me come back to the Minneapolis now waxa weeyaan public policy kan dejinayno waxaa loo sameeyaa dadka yimaada oo ka qayb gala oo horjoog u ah annaga waxaan leenahay oo aad u mahadsan
boqol iyo afar iyo tobankii mahadsan waxaan leenahay gabdho Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo si aad ula socda carruurta oo aan ku badbaadno ragga oo anaga aan ka tirsanahay I wish in sheekada faraha badan iyo hebel wata iyo hebel ka dhacay intaan dayno to come to the school and follow the children annaga ay lagu xaran tahay dalkan deganna cunug waxa uu noqonayaa diis waalidkiis aysan daba socon maanta we need especially Tuesdays kana aragno ardada Soomaaliyeed waliba aabayaasha Soomaaliyeed lama say inay yimaadaan inaan la socotaan in kala ma aqaan gabdhaha Soomaaliyeed badanaa they are doing well in the district iyagaana weeyaan dadka hadda jaamacadaha ka baxaya but not so much leadership and it's all up to us now to decide what to do with them. By the way, that's an actually global phenomenon. Leadership madow halkan jooga oo Soomaaliya ka mid yihiin they are in trouble for the most part. Also, Sweden markaa tagay they are also trouble. My point wax kale maaha please haddii ay noqoto serious about the future of the children it's all about us and what we do now. midda ugu dambaysa qodobka ugu dambeeya rabaan inaan idiin sheego waxa ay tahay oo aad ogaataan and I really hope that was all my message for tonight inaan idala share garayo waxa ay tahay there is no way no how ma dhacayso wax soconaysa maaha qowmiyad luuqad leh oo tirahda luuqadii annaga ilaahayna siiyey qofna ma dooran inuu Soomaali noqdo ama habka noqdo Soomaali adoo Hargeysa jooga ama Xamar jooga ama Minneapolis jooga luuqadda Soomaaliyeed inaan ka tagno oo aan weliba ardada Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed weliba ay gobolka magaaladan degan in native language literacy wax la yiraahdo laga waayo districtiga aan joogno Minneapolis waan ugu badannahay iyadoo Spanish lagu dhigayo Hmong lagu dhigayo luuqadaha kale lagu dhigayo qofka marka la yiraahdo Soomaali lagu dhigo aanan lagu dhigin wax macnaha oo ay samaynayso ma jiraan English waa la baran karaa Spanish waa la baran karaa French waa la baran karaa laakiin midda adiga aad ka tirsan tahay wax aad ka tegi kartid oo aad ka fogaan kartid haba yaraatee ma macno badan ma samaynayso midda ugu dambaysa waxaan I hope inta aan la gabagabayn macalin Saciid waxaan ogahay inuu qofka Soomaaliga gaarsiiyey heer jaamacadeed xer badan oo asaga ku xiran oo buuq laakasan inuu leeyahay xartiisana inay noo yimaadaan walaadsantiin assalaamu calaykum